asalaamu calaykum guud ahaan daawadayaasheena qiimaha leh idilahaantiin meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan waxaan hawada idinka leenahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan hadba xilliga ay kuu tahay daawade ha kuu wacnaado oo ha kuu wanaagsanaado. halkaad nagala socotaan waa shabakada Somali Faces oo maanta idiin soo gudbinaysa muuqaal ka mid ah muuqaaladii dabcan taxanaha inoo ahaa ee aan ciwaanka kaga dhignay imise lacag ah ay YouTube-ka ka sameeyaan. waxaana muuqaalada caynkan oo kale ah aan ku soo qaadanaa guud ahaan YouTube-leyda Soomaalida oo ka kooban gabdho iyo wiilal. waxaana muddooyinkii dambe aan idiin soo gudbinaynay ama maalmahan idiin soo gudbinaynay muuqaalada caynkaas oo kale ah. waxaana dabcan muuqaalada caynkan oo kale ah aan ku soo qaadanaa YouTube-leyda Soomaalida kuwooda ugu magaca weyn. waxaana muuqaalada aan usoo sameynaa dabcan codsiyo ka yimaada dadka ina daawada oo qeybaha hoose ee commentiga nagula wadaaga qofka ay jecel yihiin in aan muuqaal kasoo sameyno oo ku saabsan imise lacaga ay YouTube-ka ka helaan. sidaas awgeed qofka loo bato ayaan inagana kasoo sameynaa muuqaal ku saabsan dabcan ciwaanka hadda aad ujeedaan. dad caan ah ayaan muuqaalada caynkan oo kale aan kasoo sameynay oo dhowaanahanba aan idinla wadaageynay. dabcanna waan soo badin doonaa muuqaalada caynkan oo kale ah. dad badan ayaa soo codsanaya waana sii wadi doonaa insha allah. balse muuqaalkayaga maanta ayaan doonayaa inaan sii gudagalno. waxaana muuqaalka maanta aan idiin soo gudbinayno uu ku saabsan yahay isla muuqaaladeeni dabcan taxanaha ahaa ee aan ciwaanka kaga dhignay imise lacag ah ayay YouTube-ka ka helaan. waxaana maanta muuqaalkayaga aan kusoo qaadan doonaa youtuberka weyn ee caanka ah ee lagu magacaabo King CK oo ka mid ah YouTube-leyda Soomaalida kuwooda ugu caansan. haddaba daawadayaasheena qiimaha leh muuqaalkayaga maanta waxa uu ku saabsan yahay King CK oo aan kusoo qaadan doono. dabcan waxaadna ogaan doontaan inta lacag ah oo YouTube-ka uu ka sameeyo King CK. balse inta aanan bilaabin muuqaalkayaga waxaan daawada kaa codsan lahayn in aad videogan like inoo dhahdo. haddii aad janalka ku cusub tahayna aad ku soo dhawaato janalkeenna iyo weliba dabcan subscribe ayd noo dhahdo janalkeenna ayaan kaa codsan lahayn ku soo dhawaada muuqaalkeeni maanta oo faahfaahsan. waa hagaag daawadayaal sidaa ciwaanka aad kaga jeedaa muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay qayb ka mid ah ama muuqaal ka mid ah fiidiyoyaashii taxanaha inoo ahaa ee aan ciwaanka kaga dhignay imise lacag ay YouTube-ka ka sameeyaan. waxaana kusoo qaadanaynaa maanta sidaad ujeedaanba King CK Films and Vlogs oo ka mid ah YouTube-leyda Soomaalida kuwooda magaca weyn ka sameeyey. dabcan CK sidaad ogtihiin waxaan kasoo sameynay dadka nagu tixan ayaa aada iyo aada ula socda. dhowaan muuqaal caynkan oo kale ah ayaan kasoo sameynay. dib usoo gal janaalkeyga waad ka heli doontaan. dad badan ayaa iga codsaday oo haddana inaan kusoo celiyo muuqaalkii. janaalkiisa ayaan tegay waxyaabo ayaan kasoo hubiyey. waxaan iisoo baxday in janaalkii uu waxyaabo dhaqdhaqaaq kala duwan uu sameeyey uu lacagtii uu sameynayay ee siyaaday. muuqaalkaasna 3 bilood ayaa laga jooga aan videogaas aan soo geliyey janaalkeyga. gudaha usoo gal janaalkeyga si aad dib ugu daawato. maantana wuu ka duwan yahay muuqaalkaas oo dabcan CK isbedel ayaa ku dhacay janaalkiisa 3 bilood ee aan kasoo gudubnay. haddaba daawadayaal isbedelkaas ayaan idinla wadaageynaa oon idiin soo gudbinaynaa. inkasta oo isbedel weyn uusan ku dhicin oo lacagaha dhankiisa ah inkasta uusan isbedel sidaas aada u weyn uusan ku dhicin haddana waa ay kobacday lacagta uu sameynayay bilihii ugu dambeeyay aan kasoo gudubnay. hagaag muuqaalka muhiimadiisa ayaan gudageli doonaa daawadayaal. halkani waxaa iiga muuqda ciwaan aada dabcan u yaala sida tan ama u dhigan sida tan anis oo lagu magacaabo waxyaabaha qofka uu shaqaysta ama uu helo. ciwaankaas ayaa waxaa hoostiisa ah 3 qaybood ayaa loo kala qaaday oo kale ah estimated daily earnings oo ah maalintii inta qofka uu shaqaysto iyo weliba estimated monthly earnings oo ah inta bishii uu shaqaysto iyo weliba estimated yearly earnings oo ah inta sanadkii uu helo ama uu shaqaysto.
haddaba taa waxay ka dhigan tahay maanta daawaday waxaad ogaan doontaa king ck films and vlogs oo ah youtuber aad daawato inta lacaga oo youtube-ka ka sameeya maalintii bishii weliba sanadkii. muhiimadda muuqaalka ayaan sii gudagelaynaye waxaan kow soo qaadanaynaa number 1 oo ah estimated daily earnings oo ah maalintii inta lacaga uu helo ck. haddaba maalintii ck waxa uu helaa lacag dabcan wuxuu helaa maalintii $96 ayuu helaa. USD dabcan waa US dollar ayaa laga soo gaabiyey. wuxuu helaa $96 ayuu helaa maalintii ayuu helaa king ck. haddaba bishii ayaa laga yaabaa inaad isweydiinayso. bishii waxa uu helaa 3.1k ayuu helaa. muuqaalkii aan ka duubay 3 bilood ka hor aan ka duubayna waxa lacagta bishii uu helaa ay ahayd 2.8. haddana isbedel ayaa ku dhacay dabcan waa ujeedaan. dabcan iminkana waxa uu bishii uu helaa lacag dhan 3.1k oo dabcan kala duwan. 3 bilood ayaa laga joogaa waagii uu qaadanayay 2.8 kun ee usoo dhaceysay. haddana waa 3.1k ayaa usoo dhacda bishii oo ah $3,100 lacag ayuu bishii helaa. dabcan isbedel ayaa ku dhacay waad ujeedaan. sanadkiina dabcan waxa uu helaa ama uu jeebka ku shubtaa ck lacag dhan 36,000 oo US dollar ayuu helaa oo waadaad 6k ayaan ujeedaa oo ah 36,000 oo US dollar. waan filayaa daawade inaad ka jaahil baxday inta lacaga uu king ck films and vlogs uu ka sameeyo aalada youtube-ka. muuqaalkeenana muhiimadiis intaas ayay ahayd. guud ahaanna waxaan jeclaha inaan halkaas ku hakiyo ama aan kusoo gabagabeeyo muuqaalkeeni maanta ee ku saabsanaa imise lacagaha youtube-ka ka hela king ck. haddaba halkaa ama intaa ayaan ku hakinayaa daawade muuqaalkeeni maanta. welina waxaan ku leenahay qof alaala qofkaad jeceshahay qaybta hoose commentiga nagula wadaag inaad ogaato aad doonayso. annagana qayb dabcan qofkii loo bataa ayaan muuqaal ceynkan oo kalea aan kasoo samayn doonaa. waxaana muuqaalkayaga maanta uu halkaasi ayuu ku egyahay oo halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. daawadayaal waxaan ku xusuusinayaa inaad videogan like inoo dhahdo. haddii videogan like aad dhahdo macnaheeda waxay tahay in videogan oo youtube-ka ay ka dhigi doonaan public. dabcan wuxuuna u tegi doonaa dad badan oo janaalkayga aanan aqoon u lahayn ama aanan ogeyn. dabcan dadkaasna waxaa laga yaabaa in liketa ayay dhahda awgeed ay subscribe ay iigu dhahaan janaalkayga sidaasna aad adigu igu caawiso. qaybta hoose commentiga ha iloobin inaan igula wadaagto qofka aad jeceshahay inaan muuqaal ceynkan oo kale kasoo sameeyo. tan iyo kulantideen dambe waxaa idinku dhaafayaa guud ahaan saaxiibadeenow sidaas iyo nabadgelyo.